gabadhan oo la ildaran xanuun oo muddo 23 sanadooda ku noolayd magaalada Abuuhoodle kana soo jeeda qoys danyara ayaa waxa ku guuleystay walaalo muslimiin oo ku kala nool daafaha caalamka in ay u dhisaan gurigan oo ka kooban 2 qol iyo suuligii ayaa waxa maanta lagu wareejiyay qoyska ay ka soo jeedo gabadhan la ildaran xanuunka dhibirka. Gabadhan oo markii hore deganeyd meel aad u dayacan iyadoona ay ku wareejiyeen ururka ka shaqeeya khayraadka iyo arrimaha bilaadanimada. ugu horeyna waxa ka warbixiyay Cabdillaahi Jaamac Haruun oo kamid ah culimada diinka kana tirsan gudida gacanta ku haysa dhismaha loo dhisay gabadha la ildaran xanuunka dhibirka. awalan waxaan marka hore idin sheegayaa bishaaro fiican inuu inoo dhameystirmay gurigii 2 qolaha iyo suuligiisa ee aynu ugu talagalnay qolka koobaad oo aynu horay u dhisnay oo aynu ugu talagalnay Muna Arab Ali oo ah gabadh xanuunsanaysa oo xagga dhibirka ka xanuunsanaysa saad u jeedaan qolkeedii iyo sariirteedii hadda fadhida meesha ay hadda fadhido ee qolku uga dhisan yahay ay sariirta ku fadhidana sawirkeedii hore aad aragteen in meel cooshada oo dayacan oo aad u liyeeta ku jirtay. Ilaahay mahadii waa u dhameystirmay way degan tahay sariirteedii baa u taala suuligii baa gudaha waa jawi farxad fara badan leh baa iyada iyo annagaba nalaga dareemaya. qolka labaad waxaynu dhisnay maamo Faadimo Xasan oo ah ayeeyada gabadhan gacanta ku haysa oo ayeeyadeed aabba ah oo saad u jeedaan qolka islaanta fadhida ah uu u dhameystirmay uu u goglan yahay sariirteedii baa u dhex taala way ku fadhidaa way degan tahay maantay awalan degtay wayna degan tahay ilaahay fadliga isxaankiina wuu dhameystirmay si fiican oo qurux badan uu ugu dhameystirmay. waxa asaguna sidoo kale halka ka hadlay Mucow oo kamida asaguna gudidaasi Aisha Ali Maama Faadimo iyo Muna dhamaantayo iyo reer Xaaji Ali dadkii deriska ah iyo dadka reer Buuhoodle waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in mashruucan khayriga ah uu dhamaaday sidii ugu wanaagsaneedna uu ku soo gabagaboobay wax kale oo aan uga gudumay. dhanka kale waxa iyaduna halka ka hadashay hooyada dhashay gabadhan lagu wareejiyay maanta 2 qol kuwii qalqaliyay iyo kuwii bixiyay iyo kuwii u orday wax wanaagsan baan Ilaahay u weydiin adduunyadana filsan aakhira filsan adduunkana filsan ayaan Ilaahay u weydiin gurigiina waa gudoomanay waana loo dhisay waana loo orday waana loo nimceeyay wax Ilaahay bixiyay kuwa noo ordayna ay ku mahadsan yihiin baan ku jiraa maanta. si kastaba ahaatee walaalaha muslimiinta ee ku kala nool daafaha caalamka ayaa waxay si rasmi ah ugu guuleysteen in ay u hirgeliyaan hooy ay ka gasho dhaxanta iyo waliba sidoo kale roobabka. Maxamed Cali Bile, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Abuuhoodle.